dowladda Itoobiya ayaa maanta deeq raashin soo gaarsiisay Somaliland taasi oo loogu talagalay dadka abaaruhu ku saameeyeen gobolada bariga Somaliland waxa deeqdaasi kala wareegay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee Somaliland gudida taakulaynta abaaraha ee heer qaran iyo gudida abaaraha ee heer gobol ee Gabiley maamulka gobolka Gabiley mas'uuliyiinta degmada Togwajaale waxaana deeqdaasi sida safiir ku xigeenka Somaliland u fadhiyay Itoobiya hadaladii ay mas'uuliyiintu halkaasi kaga hadleen deeqdani raashinka ee Itoobiya ka timiday ayaa waxa kamid ahaa ugu deeqday dalka aynu jaarka nahay in walaalahana ee dalka Itoobiya waan leenahay dad walaala ah oo inta iyo in badanba isasiya ayaynu nahay ilaahay baa mahadle marlabaad waxaan u mahadnaqaynaa dawladdan walaalaha nahay ee federaalka ee Itoobiya oo runtii maanta farxad weyn ay noo tahay halkan in wasiir dawlaheenu kaga wareegay halkan iyo gudidii abaaruhu raashin 18 baabuur saaran oo si tareelayaal ah ee inagu caawisay deeqda raashinka ah iyadoo inagala qayb qaadanaysa abaaraha sanadkan ilaahay nagu keenay ilaahayna inaga saari doona insha Allah taala waa buug aan haysano maalinta baahidu jirto iyo maalinta qofka dhibaato haysato buugu sitaa buuga wuxuu ku qoraa cidii wax tartay Ethiopia always on the side of Somaliland at the time of challenges and some difficulties. anigoo ka wakiila xukuumadda Somaliland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan xukuumadda Somaliland ba halkan waxaan kula wareegaynaa macaawino ay nagu caawiyeen walaalaheena Itoobiya labada dawladood ee walaalaha isku dad baan nahay oo waxa weeyaan dadkeen waa kuwan labadii dhinacba waa degan yahay markasta Itoobiya waxyaabo badan bay naga dhaxeeyay sidoo sheegay waxa weeyaan security-ga aan ka wada shaqeynaa ganacsiga ay naga dhaxeeya waxay naga dhaxeeyay mar walba relationship badan bay naga dhaxeeyo oo wadnaa sida imika inaan kaga wareego oo xukuumadda Somaliland ka wakiila dawladda weyn ee Itoobiya ee jaarka nahay shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba deeqda waan gudoonay deeqdaas la sheegay wax ka kooban tahay gawaarida faraha badan leh qiyaasta sida nasiib wanaag waxa ku soo bagantay deeq kale oo 12,500 qoys iyo dheeraad ah oo dawladda Djibouti Mukhtaar Nuux Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley